ووقتهن معارضكو انتا اي دل مريان اما اي دد وحو شيغيان ummadii Soomaaliland waxaad moodaa majority-geedii inuu dhan isu raacsayo mucaaradii waxay ku dhawaaqeen mucaaradku haddii 13 November gaadho ma aqoonsanayno kordhintaas maxay keeni kartaa ama maxay u dhici kartaa halkaasu talay u baahnayd taladii maanta inoo muuqato waxaan ku soo koobayaa waxay u eeg tahay shir guddoonka iyagu markan ka soo qaado guddoomiyaha 94kii raggii mashaakilka ku jiray wax ka mid ah aniga iguna raggii mashaakilka ku jiray wax ka mid ah laba arrimood iska soo horjeedaan ka mid ah raggii dagaalka ka qayb galay baan ka mid ah raggii markii dambe nabadda keenayna ka mid baan waxaan leedahay arinta labada halkii bariga uu ka hayay ayaad moodana maanta ka haysaado arrintu inuu faraha ka baxdo ayuu malaaciyaan moonaya waayo shirka uu labada bilood xidhay dalku halku maraya laba islaama raggii hore ee haysan jiray guddoomiyeyaasha ka aana taladoodu gaar bay ahayd oo madaxweyne ma xukumi jirin iyo wasaaradtoona kama tirsanayn ilaahay ha u naxariiso Sheekh Ibraahim wuxuu la soo shaqeeyay ina cigaal intii ay fuuleen meesha iyo ina riyaale Allah ha u naxariiso saddexdoodaba marka uu aqoonsado madaxweynaha intuu tagaabu miiska ku garaaci jiray war sidaa kada oo ka soo bixi jiray way ka dabayman jiray oo oran jiray maxaanu yeelaa maxaanu sheekh samaynaa maxaa inoo dana taladu siiyo ayuu wax ku degi jireen Saleebaana sidii wax leeyahay dadku waa arkaya maanta oo ay maalintay ugu xumayd Soomaaliland ay tahay oo hadday afka ka baxdo ay masaxmayso meeshu ayuu halku ka gilgilan lahaa ee oran lahaa lama bixi karo ee guddiyaal samayn lahaa ee nin walba miiska ku garaaci lahaa nin walba hadday mucaarad tahay hadday maxaafad tahay hadday madaxweyne tahayba ayuu waxa madaxweynuhu soo yiraahdo oo qaadanaya wadeedma waxa uu soo yiri ummadda ma wadaysa iyo ma wadayso midna oran maaye amaruun baa la soo siinayaa oo ku dhaqmaya taasina ma aha tii guurtinimada markaynu ilaahay ka baqno waxaad moodaa golihii inuu isu bedelay wasaarad ka mid ah wasaaradaha dawladda oo ku shaqaynaysa ogolaanshiyaha ay xukuumaddu kolba siday ogoshahay taas waa arrin la yaab leh golaha ku soo korodhay mas'uuliyaddeedana waxa iska leh shir guddoonka waxa jiray xeer loo soo gudbiyay golaha oo golaha wakiiladu soo gudbiyay oo halkiisii lagu baabi'iyay baa jiray doorraata markii golaha la xidhay waxay ahayd oo aanu mooshin ku keenaynay in xeerkii la soo dhigo si aan taas u dhicin goliba waa la xidhay 6 bilood gudahood baa 6 habeen baa la xidhay 2 bilood waxa jiray warqaday soo gudbiyeen xisbiyada mucaaradku bishii afraad oo ay shir guddoonka u soo gudbiyeen oo ay leeyihiin xaaladda dalku maraya hal la eego shir guddoonku uma soo gudbin golaha meel baa la iskaga tuuray madaxweynaha Siiraayo fadhigii labada gole uu ka sheegay Muuse waa ag fadhin waxaan Muuse maanta ayuu ururada fasaxaya wixii kuma dhaco habeen hore wada joogno kuma jirta ajanda markii uu sheegay Siiraayo Muuse wadnaha istaagay Muuse wax Allah